Asalaamu calaykum, waan idin salaamay akhyaarta sharafta leh xilli kastoo ay idin tahay wacan u wanaagsan. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Taxanaheennii caafimaadka ahi ku soo dhowaada. Taxanaheennii waxaynu ku soo qaadan doonaa 7 arrimood oo haddaad wax walba samayso kaa ridaya cayilka. Korodhka miisaanku waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu badan ee dunida maanta ka cawato, maadaama uu culays ku hayo caafimaadka bulshada iyo dhaqaalaha. Waxaa iyaduna garab socota in dadku ku baraarugeen dhibaatadan, sidaa awgeed uu miisaanku dheeraadka ahi ka mid yahay waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay, isla markaana ay bulshooyinka dunida oo reer magaalku u badan yihiin dagaal joogto ahi kula jiraan. Qormadan aynu ka soo xignay telefishinka Al-Carabiya waxa aynu ku soo bandhigaynaa dabeecado ay khubarada caafimaadku sheegeen in caadaysigooda subaxda hore ay qayb weyn ka qaadato dhimista miisaanka. Sida loo dhimo miisaanku waxaa ka mid ah 1. Ku maydhashada biyaha qabow ama ku qabaysiga biyaha qabow. In biyo qabow oo subaxdii hore lagu maydhaa waxa ay ka qayb qaadataa in jirku ka takhaluso unugyada dufanaysan. 2. Cabista biyaha. Xeeldheerayaasha caafimaadku waxa ay caddeeyeen in litir badhkii oo biyo ah oo la caadaysto subax kasta marka hurdada laga soo toosaa ay si weyn uga qayb qaadato dhimista miisaanka. 3. Shaha cagaaran. Waxaa dad badani caadi u ah in subaxda marka ay indhaha ku kala furaan koob bun ah, waxaase ay xeeldheerayaashu caafimaadku caddeeyeen in koob shaha cagaaran oo subax kasta hurdada kadib la cabaa ay keento inuu miisaanku si muuqata ah hoos ugu dhaadhaco. 4. Quraacda. Dad badan ayaa aaminsan in quraacda oo laga tagaa ay miisaanku dhinto, waxaase ay khubaradu caafimaadku isla waafaqsan yihiin in quraacda oo la cunaa ay ka mid tahay sababaha miisaanka dheeraadka ahi u dhaco. 5. Borotiin. Borotiinka oo ka mid ah maadooyinka jidhku aad ugu baahan yahay ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in subaxdii hore oo la caadaysta cuntooyinka borotiinka laga helo, gaar ahaan baydhka. 6. Jimicsiga. Guud ahaan jimicsigu waa habka ugu habboon ee lagu dhimi karo miisaanka, waxaase ay khubaradu caafimaadku si kala doortaan xilliyada ugu habboon jimicsiga si uu miisaanku dhimo, iyaga oo sheegay in jimicsiga oo la caadaystaa subaxda hore ay tahay marka uu ugu fiican yahay. 7. Qoraxda. Fallaadhaha qoraxda ee subaxdii hore waxa ay firfircooni geliyaan awoodaha jidhka uu u leeyahay dheefsiga cuntada. Sidaa awgeed, haddii aad doonayso in aad miisaankaagu dheeraadka ahi dhinto, caado ka dhigo inaad subax kasta daqiiqado kooban isu dhigto qoraxda aroortii.